السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي ملك استوديو كجوجت من سلامنا فضلا هديتي مركي كوغوري سيدنا صوب وقتي سبسكرايب صار هدد هورنولا جوجتي لايك كومنتي عن شير. صحابتي قالي ان عاو حندي ودا اما habeen كمبيدكا barnaamijkii adiga barateen barnaamijka duwan kaas oo ah wacyigelintaas oo ku saabsan cudurkan imika soo galay wadankeeni Somaliland coronavirus asxaabta qaaliga maanta ama xalay oo dhan waxaan maqmaqlay oo soo gaaray maxaa la yiraahdaa 4 qof marka laga reebo labadii qof ee laga helay berbere iyo burco ina 3 qofna laga helay isla hargeysa 2 qof laga helay qofna laga helay boorame sidoo kale waxa la sheegayaa in dad badan aanay soo bandhigin balse laakiin xanuunka isaga la jiifaan maanta inaan ila saadasho tiri booramo kale xaafado dhan baa jiro oo uba jiifaba marka saxaabta qaaliga iyo dadweynaha ay maqlayeen meel kasto dadweyada ka joogtaanba ama Soomaaliland noqoto ama Muqdisho noqoto waxaan deeydi ka codsanayaa ama baydii sheegnaa ama baydii ku dhiirigelinaya in nafihiina ilaalisaan sidoo kale waxa la sheegay on xalay toole warkii ka dhageysanayay ama warar la soo tabinay ay sheegayeen in wasiirkii duulista hawada ee Somaliland oo wadanka dibadiisa inaga yimid uu diiday in la karantiineeyo taasina waa shay aad iyo aad u qalada oo aan ahaanteeda aan qalad u arko waayo waxa la yidhi geere duqdiisii durdurisay aarankiisana maxaad malay taasoo ah maanta haddii dadkeeni madaxda ahaa ee intay wadamadii cudurkani ka jiray ay ka imaadeen ay iyagii karantiinkii diidaan bal waaye shicibka maxay u malayn doontaan dawladda waxaan ka codsanayaa ama wasiirka diiday ee la sheegayo inuu iskarantiino si aan faamiligiisa wax u yeelin bulshada kale waxba u yeelin dadka wasaaradda kala shaqeynaya uu madaxda u yahay aan waxba u yeelin sidoo kale waxa la sheegayaa labadii qof ee hargeysa laga helay sidoo warku sheegayo ee warku nagu soo gaadhay in maxaa la yiraahdaa labada qof baxsadeen in la baxsado maaha in argagax la iskariyo maaha cudurkan ilaahay baa keenay balse laakiinse yaynaan isqarinin calaamadihiisa aad isku aragto qofac cuna xanuun calaamado badan buu leeyahay dadkeena xayawaan bad moodaa iyagoo cudurkii arkay iyo calaamadihiisa ay ku oranayaan maxaa la yiraahdaa hargab xun baa nagu dhacay sidan waxaan ka codsanayaa meel kasto adduunyada kaga sugan tihiin gaar ahaan Soomaaliya iyo Somaliland dad masaakiin runtii ku nool waxa jira sida wadamada caalamka oo kale manihin oo wadamada caalamka wad aragteen guryaha qof walba qolba la geliyo lagu karantiineeyo ama gurigiisi waxa jira dawladda wuxuu ku noolaanaysiinasa markaas uu qofkii kaga badbaaday balse laakiin si inagu maadaama wadan yar oo iska curdina oo dhibaatooyin iyo wax kastaaba ay iskaga baalaysan saama yeeli karno mana awoodno gurigii waxa jira iyadoo shan qof loo seexdo qolka ugu yar laba qof loo seexdo balse laakiin si iyadoo saatay haddana ma garan karno dawladdu say wax oran doonto laakiin se markastaba anagu waxaan halka u taagan oo ku baraarujinaynaa inaad meelaha daruuriga mooyaan sida dadka qotal daruurigooda doonanaya maadaama ay dawladda intay fadhiisay tiraahdo guryihiinii fadhiya ayna siin kareen waxay ku noolaanayeen waxaan qurux badan inay waxa muhiimka ah in la soo qabsado waxyaabahan kale la iska daayo malaayacniga meelaha la iska taagtaagay sida suuqyada la iska fadhiyo marfijyada qaadka lagu cuno kale meelaha la iska marmaray dhalinyarada isku imanaysa iyagoo xalaalo waxay ka sheekeynayaan aan jirin sidoo kale waxa jirta in imika basaskii leedo waxa la karantiineeyay haddana 15 qof lagu raacayo midda labaad kale askartan waxaan ka codsan lahaa intay dadka dhalinyarada meelaha iskugu yimaada ay qabtaan halkii jeelka ka geynayaan inay qof kastaba gurigoodii geeyaan sababtoo ah jeelka dad geyso kii aad la geyso laga yaabaa inuu xanuunkii qabay kan kale ugu geynaysa uu ka qaado kadibna saa ay ku faafto marka wax kasto waxa haboon inaynu cilmi iyo aqli ku darno sidoo kale waxaan ka codsanayaa dhalinyarada meel kasto joogtaaba dhalinyaradu waa cududii wadanka waa dadkii maanta lagu hiranay
sameeyay ma garateen marka hadeynaan dawladdu kaligeed waxba ma qaban karto far kaliyatina fool ma dhaqda haba yaraatee hadeynaan maanta inagu wacyi gelin sameyn yani dad aynaan in wax la qabanin dawladdu kaligeed waxba ma qaban karto marka waxaan ka codsanay inuu qof kastaaba gurigiisa joogo isku karantiimeeyo in nadaafadii la ilaaliyo sidoo kale in ducooyin waxa jira la akhristo sida Allahumma inni a'uudu bika min al-baras wal-jununi wal-judani wa min sayyi al-aqsam ducadaas aad iyo aad bay u fiicantay cudur walbana way ka difaacaysaa markasta weysada badsada in adigu naftaada control waxa kale oo idin ka codsaneen boqolkiiba boqol idinku boorinaya inaydan qaritaanka iska daaya wax yar hada iska dareentaan dhakhtarka kugu dhow aad way maanta dad adu isqariso hooyadaadii guriga kugula joogtaad kalaafanaysaa walaalka aabaha walaasha family-gaaga iyo dhan marka inta dadkaas oo dhan galaafan layd adigoo kaliya waxaad qabtid meel ha lagu karantiimeeyo please madaxdan waxaan ka codsanay madaxda la yiri karantiinkii bay diido wadanka dibadiisa ka yimaadeen inay aanay diidin iyagii baa noo madaxoode maanta iyagu waxay sameeyaan baan ku dayanaynaa inaanay iyaguna ay karantiimeeyaan oo wadan dibadiisa bay ka yimaadeen labada toddobaad wax yarba weeyaan ay gurigooda iska fadhiyaan ay umada kaga jireen sidoo kale waxaan maqlay oo maanta ay soo gaadhay in masaajidadii leeyahay waa la xidhayaa oo eedaankaas inta la maqlaa dadka loo dhan ee gurigiina ku tukada run ahaantii aanu taa qalad baan u arkaa sababtoo ah Ramadaan bay imika soo galaysaa bishii khayrka badneyd horta dad saameynay dad diin leenahay ma aha inay masaajidada xidhno wax kasto dhacaya hatta lagu wada dhintaa hadii la doono wallahi anitaasaan aaminsanahay meel kastaba ha la xidho laakiin masaajidada Ilaahay aan la xidho Ilaahay baa inoogu caroonay cadhay Ilaahay baa inoogu dhacaysa marka masaajidadii la xidho waxaan anu oran lahaa salaad hal la tukado ducada hal la badiyo adkaarta hal la badiyo saqiir walaa kabiir waxaan ka codsanayaa in Ilaahay tala saartaan Ilaahayna qofka barya ee qacmihiisa u taagan marnaba baryadiisa ma soo celiyo marka dad islaamaynu nahay qolkiiba boqol aynu dhiirigelintana wadno iyo sin dadkeena u wacyi gelin lahayn sidoo kalena aynu ku dadaalno diintii iyo Ilaahayna tala saarano aynu barino in asxaabtayda qaaliga barnaamijkii aan caawidii waday ee dhiirigelinta ahaa ee wacyi gelinta ahaa inta sayndii ku soo gabagabeynaya meel kasto aad joogtaanba in ka qayb qaado in dadka ka wacyi gelinto. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.